waxaa maanta lagu qabtay munaasabad si weyn loo soo qabaqaabiyey laguna caleema saarayay suldaanka guud ee beesha reer diini maxamed waxaana ka qayb galay marti sharaf kala duwan munaasabadaas si weyn loo soo agaasimay wariina naga soo warama halkaas Muxudiin Xararka ayaa warkan eegaya waxaa maanta lagu caleema saaray magaalada Dhagaxbuur ee gobolka Jarar suldaanka beesha reer diini maxamed oo kamid ah beelaha daga gobolka Jarar ee dawlad deegaanka Soomaalida xafladda caleema saarka oo ka dhacday hoolka shirarka ee magaalada Dhagaxbuur ayaa ahayd mid si weyn loo soo agaasimay caleema saarka suldaanka beesha reer diini maxamed suldaan maxamed maxamuud daahir ayaa waxaa ka soo qayb galay garaadyo ugaasyo suldaamo iyo mas'uuliin isugu jira heer deegaan iyo heer gobol ugu horeyntii waxaa xafladda furay garaad Bashiir garaad Axmed garaad Maqtal daahir oo ah garaadka guud ee beesha reer Isaaq garaadka ayaa hambaliye iyo bogaadin u soo jeediyay suldaanka cusub ee loo caleema saaray beelweynta reer diini maxamed alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd marka koobaad waxaan mahadnaq u leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo soo fadhiyay inaan xafladan isugu nimaadno inagoo meelo badan oo kala duwan ka nimid iyo dibadba si nabadana inuu Ilaahay inoogu soo fadhiyo Ilaahaas aan u mahadcelinaynaa mahadooda isaga iska leh inta kadib waxaan mar labaad isaga u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada ee hawshan ku mashquulsanay muddada dheer hawshan inoo soo diyaarisay xafladan qiimaha badan isku soo dubarriday rag iyo dumarba waxaan iyagana ugu mahadcelinaynaa jazaakumullahu khayr heesta kale waxaa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha gobolka Jarar Axmed Maxamed Axmed Beric iyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada Cabdiqaadir Macallin Maxamed أخيارنا جون يبقى عن كل مهي والبحرية عن كل مهي أنت عن سلاح هيدر منعنين وعن مجال الجهور بحر بقى مركزها الجهوري يوم يزور الوزير في عمس الوزير آل يا الله الله يجب العبيدنا بعد الله من أمن البريد نهديه يا رب الوزير وجد الله صلى الله عليه وسلم ذكر مغنى إنه ذكر الجانبين ومن ممكن على المباني إلى هذا الشيء فلان كذا أي هذا عن محمد ومحمد عن محمد لو كذا ماذا عن سلاح هاي ولدان وهذا ما دام وقت حياتنا هاي ونحن نقول أو وقت التعرض للجنة القصة على الأيام يقولون أن هو يبقى وقت البلاد عن سلاح هاي كلمة الله يجيب سؤالي عنك وكلمة حاسبة لله كما قلت من أجل كل شيء ما لا يحمل الله ولا يحسن الله نتيجة تشكيل من قبل ما هو معرفة سياسية ما هو معرفة حكومة وحرجينا همتي كلمة يريد أسكال ما قال كلمة أسكال وحنش على استكلية يعني كرد عند الله يعني الله فرحنا يعني يونس ودوينه سلطان محمد ظاهر كنتي وسلطان القوية وحجرها فهم بدل إياكم المسيح وسلطان علينا ومنطق إياكم الكلام وحبلوا intii waxaa xafladda soo xoray suldaanka cusub ee loo caleema saaray beesha reer diini maxamed suldaan maxamed maxamuud daahir isagoo mahadcelin ballaadhan u jeediyay marti sharaftii ka soo qayb gashay caleema saarka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala baan mahadcelinaynaa koonkan dhan abuuray ee inagu kulmiyey maanta noloshan sharafta badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadcelinaynaa waxaan mar labaad alla ugu mahadcelinaynaa nimcooyinka uu ina siiyey ay nabadda aynu maanta harsanayna ay kow ka tahay ilaahay saasaan uga mahadcelinaynaa waxaanan alla ka baryaynaa inuu inoo siyaadiyo ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa mixnado badan oo nabadda midiko ayaynu soo marray sidaas daraaddeed waa inaan nabadda marar badan ku celinaa shukrigeeda alla mahadiisa kadib waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha ka kooban magacyadii aan markii hore xusay ayaan u mahadcelinayaa waxaan idinka mahadcelinayaa sidaad noo karaamayseen ood noo sharafteen ood noo qadariseen ood masaafooyinka dhaadheer uga timaadeen idinkoo gaadiidkiina wato oo shidaalkiina ku soo shubtay ayaan idinka mahadcelinayaa dhammaantiin
waxaa si absame loo soo dhammaatay caleemasaarka suldaanka cusub ee loo doortay beesha reer diini maxamed oo ka mida beelaha dega gobolka jarar suldaankan ayaa noqonaya suldaankii labaad ee loo doorta beesha xarado RTN TV magaalada dhagaxbuur